شاء الله شيخنا عبد الله يا نوبل لابد دون كلمة شيخ عبد الله من مغلي شعب أبو عبد الله. أبو عبد الله بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو واي ولا ليال. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ليال أخيار يريركم لما أنتم بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل أتشوكتان بإلهي خير ذو هدسيو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولا ليالو إلهي ذي بركيو. آيادا وسورة الأعراف وآيادا سقاشن اللح اللي إن الرحمن كا وحب قاضي عدي لبشر دي لغهلو إنو بركوينك إركا يركو أفريو إيمان إيا لك عبسي. halkana waxaynu isugu nimi inaan waddankeena horumar gaarsiino. markaa walaalayaal dhammaantiin ilaahay idin barakeeyo. aayadda aynu aad u dhuuxno. jasaakumullahu khayran baarakallahu fiikum. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله أبو عبد الله خير الله فيه. أنا ربنا أنا هرب أنا وداد هدونا إنجنيري. أنا وقت جوا إن شاء الله مكان. waxaan rabaa inaan wax yar u sheego walaalahayna kobciyo cooperative meel ka soo joogan horta Allah barakeeyo weydin salaamayna. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulankeena sabtiga waay maanta waxa waaye waa insha Allah waxa weeye ummadda Soomaaliyeed meel ka soo joogto waxay jeceshahay inay horumarto. waxaan rabnaa inaan hoggaan Ilaahay naga dhigo. Ilaahay asaa awood iskale inay ummaddu ay ka baxdo dhibka haysto. dhibka si looga baxo si sahal looga bixi karo waa culays badan yahay waa dhib badan yahay. umuruhu waxa way waa adag waxay u baahan tahay in aad looga taxadiro aad loo dadaalo wixii aan laga maarmi doonin la sameeyo hadda la sameeyo. marka walaalayaal waxaan rabaa inaad ogaatiin kobciye cooperative ama asaasida kobciye waxa la rabo waaye wax inay quruun soo socoto shaqaysan la rabo waaye oo ummadda Soomaaliyeed uga baxdo faqriga iyo toogsiga iyo dibjiifka dhibaatada haysto. waa aragtay ilmahayna waxay cabayaan koolay ku cabayaan wadooyinka iyo meel kasta ku cabayaan dhibaatada haysto. dadkeen iyagoo baaba ay iska joogaan iyagoo u baahan in gacan la qabto wax gacan qabanaya malaha. marka dawladdeenu wax weysin doontaa insha Allah laakiin waxa waaye hadda xaalku soo yahay miisaaniyadeedu ma awood uma inay mataqaanaa mujtamac dhan ay wax gaarsiiso. marka mujtamac waa inuu asuu iskaashada waa inuu gacanta isqabta asaga. anaga marka waxaan sameeyay waxa waaye gacan isqabsiga waaye inaan gacanta isqabsano waaye. marka jazaakumullahu khayran. waxaan rabaa marka waxaan soo dhignay xoolihii yaray oo nagu mataqaan aaminteen intii awoodayna tahay waan dadaalnay. waxaan soo dhignay marka xisaab xirkiyan soo dhignay oo 2022 anaka waxa waa dhammaanteen waxaan nahay dad shaqeeya oo mas'uuliyad kala tahaaya. mas'uuliyadka dhinacooda ayaan ku shaqeynaa oo isku daynaa inaan ummadan wax u qaban dantaan leena taas waay. marka haddii xisaabaadkeen markaan u sameynay dadka qaar ay wax ka sheeganayaan waxaan rajaynaa inay raali naga ahaadaan. wax naga qaldan haba yaraatee oo mataqaan aan ku sameynay wax isdhaafis iyo iska damaras waa habeenkii xala tagay. waxaan hore u sheegnay kobciye cooperative waa zero corruption insha Allah. saas oo ku socona qaanuunka loo qorno waa zero corruption inuu ku shaqeeyo asaaba soo saarayo because habka uu qoran yahay diiday wax la damari. marka bidnal kariim waxaan sugnaa oo qadda culayska ugu dawna saaran waxa waaye inaan helno dawladda supportigeeda inaan gudoomiyaha gobolka helno inaan ra'iisul wasaaraha helno inaan madaxweynaha helno mid kamid ah haddaan helno oo guureysho na siiyo daafurkan sameey karina. markaan daafur sameynana oo marka dawladdan aqoonsana waxaba noo soo inaan furmo taqaan aan dhahno haye waa ood qaadayna marka waa daafurayna waxaan qabanayna lacagta waa la soo diraa. lacagta laga hadlaayo waa lacagta loo diraayo iskaashatada kobciye account-keeda. dad waxaan maqlay dhahay lacagaa la soo wacay lacagaan diray. arrintaas anaga shaqo kuma lihin. ha iska dirin lacagtaada qof walba qof kale gaarsii. lacag lama diri karo yaan la dhihin lacagaa kobciye loo diray asaagu aad dhuntay maya. anaga soo dhig meesha lagu ridayo lacagta anaga idin sheegeen. waxaa la soo dhigayaa telegramka waxaa la soo dhigayaa tvga waxaa la soo dhigayaa whatsappka waxaa la soo dhigayaa Facebook
meel kasta oo media la soo dhigay adinka arki doonti walaalayaalow waxaa waaye fi ta'aniyi salaamu fi lcajalati nadaam yaanan degdegin waxaan waa gaarinaa insha allah haddaanba isku qalbinahay soomaali oo 20 milyan inaan ka weyno 1 milyan 2 milyan oo isku qalbiya maba dhici karto waa la helaa insha allah biidni almawla cid kastoo lanu goyso cid kastoo mataqaan hoos noo dhigtana ilaahay subxaana watacaala waa naga gacan siinaa waana kormaraynaa biidni almawla marka qalbigiina khayr u sheega hal la duceeyo sawdiiqu noo sheegay ilaahay ha laga cabsado hana loo laabto labadaas yani waxaa waaye haddii ilaahayna laga cabsado oo istikfaar la weydiisto qofkas dembigiisa ilaah waduu ka dhigo mustajaabu dacwo noqonaa haddaad maqata mustajaabu dacwo waa qof oo ilaahay bari ee dembiga laga dhaafay marka dembiga laga dhaafo hadduu wax weydiiso waa la siina marka saas waay baaraka allah fiikum professor fidow ayaa noo daadihinayo anna waa ka jaaba bidna alkarim abu cabdalna waa noo tirnaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa bilaabi karaa marka bismillah professor fidow soo dhow السلام عليكم ورحمة الله أيها أصحابتا وهاي meesha ayuu qofka ka qaadaya crosska kadibna marka waa arkaynaa markaasaanu leenahay hebel u hadal sidaas aan la soconno insha allah aanu maaragtay sidaas oga soo qayb galno السلام عليكم. عطك فروقات عطك فروقات السلام عليكم دمان بوين السلام يا iskaashatada maaragtay dad jir kobciye iyo odayaasheeda dhammaanba waa mahadsantihiin ilaahayna inoo hirgeliyo insha allah su-aashaan qabay meeshaanba ka helayba waxaa moodayay in la bilaabay mar haddii sanadkii bilaawmay oo arrimihii isku dugmeen marka insha allah doctoorkaanba ka helay haddeer hadalkiisa axmed cali sugun yaa malaynaya allah barakeeyo insha allahu tacaala soo dhow waaya abubakar waa mahadsan tahay qofka ku xigaan u gudbaynaa sida ay tahay iyo qofka ku xiga hasoo meesha soo galo si maaragtay aan ugu fasaxna isagana soo dhowow magaciisa ku qor magacaa ku qoran doctor magacaa ku qoran shalqabal magaca kuwa gacan taagaa fiir kuwa gacan taagaa iima muuqdo qofka gacan taagayo aye qofka gacan taagayo qofka gacan taagay bal hadal السلام عليكم. وعليكم السلام. runtii waa dhowaa cabdiqaadir nuur daa joogta cabdiqaadir nuur baa la dhahaa berberi ku magac dheer waxaan joogaa degmada ka raaxo ee gobolka bari soo dhow waa dhowahay runtiina kobciye aniga telegramka kala socdaa dhowr jeer degmadana kolley dee waxaan ka ahay suuqgeey insha allah ana su-aalaha badanaana dee kuma waxaan ka akhristaa meeshan telegramka iyo facebook meel kastoo kobciye lagu sheegayana waan taaganahay baraha bulshada maasha allah marka runtii waa dhowaa waana mahadsantihiin odayaasheenni baa tihiin anaga dhalinyar baa nahay insha allah kolley dee inaan wada dadaalno unbaa mataqaanaa baan insha allah keenina baarak allah fiik waa mahadsantaa cabdiqaad waa aragnaa ina journalist tahay free license aad tahay soo dhowow cabdiqaadir qofka ku xiga qofka ku xiga qofka ku xiga qofka ku xiga aye abubakar miya maya qofka ku xiga السلام عليكم بحث كوبي وعليكم السلام cabdilcaziiz soo dhowow بعدها ولا لما سنتين أبكان متدور على الناس السعودية عامر كورس halkan kasoo qayb galay mas'aalada ka weydiiyay waxa rabaa in aan weydiiyo abkan lambarka oo ku qoran oo saddexda ah lama qabto walaalayaal wax qaf xataa door oo xafiis ka tago degmo jawaabay maxaa ka qaldan saasha sabtina lambarka oo saddexda ah oo beelka saaran lagama jawaabo inta badan lama qabto
qofka marka hadduu rabo in xafiiska uu tago ma yaqaan meel uu hagaago ama qof ku tilmaamto ma laha lambarkan uu leeyahay qofka xamar mala qabto lagama jawaabo xamar miyaa joogtaa haa xamara jooga xafiiska wuxuu ku yaalaa hotel weheliyu kasoo horjeeda hotel weheliyu markaad timaado masaajid yaraa ku yaala masaajidka iyo hotelka u dhexeeya oo dhinaca waa beri ah okay marka lambarkan khamiistan qof qabanayo ma laha miya waa jira laakiin waxaa dhigta inuu ka bataa dheet qof ahaayo mogtahay waxaa injineer cabdiqaadir ahaayo laakiin waxaa dhigta in laga badsi loo soo wacayo mogtahay okay marka haddaad xamar joogto xafiiska hotel weheliyu markaad timayd waxaa la arkaysaa mataqaanaa masaajid yaroo gadaal ku yaalo iyo intuu dhexle aan ku jirna anaga waa heli kartaa insha allah waan helaysa haddaad soo wacdo waa laga qabana aniga telefoonka haddaaysa way soo wici kartaa ma hayo inta badan cabdilcasiis inta badanna dadku shaqay ku maqan yihiin shaqa ayagoo ku jiraana taleefonka badan ama qaban karaan marka khamiistoo kale galabtii waa la soo wici kartaa waana laga qabanaa insha allah okay waa mahadsantihiin baarak allah fiik qofka xiga sii qofka ku xiga waa shalaqboon ma soomaali miya magaca waa nagu cusub yahay hadduu yahay ha hadlo qofka ugu taalo shalaqban miya magacaas magaca soomaali ma sii balan aragnay hala sii aragnay qofkan wuxuu sheegi doonaa waa la siiyay hadal soo dhawaab meeshaa joogta waa ka baxay qofka ku xiga waa la siiyey doctor hoos taabo watanka weyn taabo iska qaad islaabka iska qaad microfonka furo marka uu green noqdo hadal shalaqban waa lagu siiyey bottomka dhexo oo weyn taabo oo hoose ayamood ka soco waa ka gudbaynaa qofka xiga qofka la sii axmed cabdi xuseen kusoo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مني مغلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله مغلا والله رحمة meeshaad joogto iyo horugal هذا ما سنتين كوبية كوبريتيف waxaan joogaa magaalada muqdisho gaar ahaan madiina dharkiin layaan joogaa barnaamijka waa la soconaa muddo dhowna waa lasoo qabsanay oo aan saas u fogeen horta waa rajaynaynaa in aan kobciyo noo hirgasho alxamdulilah wax su-aala ma qabo in aragtideeda jeediyo dadkii aan ugu waabino intaas ayaa maanaa fikraddeeda kusoo koobayaa aniga waan ku qanacsanahay wax su-aala aan qabo male laakiin horey u socda ilaahay macnaha hooshaan ha noo hirgeliyo intii oo qalbushaas iyo waddo iyo iska horkeen wadana ilaahay qalbigooda waxaan leeyahay biishaambia ugu shubo waa mahadsantihiin reer kobciye aad waa mahadsantihiin baarak allahu fiik shukran cabdi xuseen dhiirigelinta iyo ducadaba allah aqbalo qofka ku xiga ayaan u gudbaynaa waa mahadsantii qof ku xiga shalaqbanaa soo noqday haddana shalaqban soo dhawow shalaqban waa ka gudubnay shalaqbanna yaa waay qof ayo soo dhawow shalaqban magaciisa ha sheeg magacaaga maxaa waay magacayga shalaqbeen waa af soomaali waaye waa magac soomaaliya waaye marka waxaanan joogaa xamar su-aal badan ma qabo hal xabaan qabaa haddaad jeclaataan midday jeclaan lahaydeen madaxweynaha wasiirka ra-iisul wasaaraha iyo duqa magaalada xamar midkii idin soo hormaro oo fursad ku heshiin miyaad la kulmaysaan mise qof gaara jeclaan lahayd inala kulantaan maya waa la kulmay midkaan la helin waa la kulmaynaa waa mahadsantihiin aad waa mahadsantihiin intaasaa qaba bis soo dhow shalaqban ayo qofka ku xiga
qof ku xiga gacanta ka qaado. Axmed maxamed aan siinayaa. Axmed maxamed soo dhowow. Axmed maxamed hadal soo dhowow, adaan ku siiyey. Axmed maxamed waa aamusan tahay, gacantana taagtay. waxaanu sii siinaa u gudbayaa muumin maxamed sabriye. soo dhowow muumin, adoo maarad ka qaadaayo. walaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa islaamay salaanka bacdi waxaan rabaa in laba su-aal oo gaagaabanada weydiiyo. midda koowaad waxaa waaye hadda barnaamijka mar muumin intee joogtaa marka hore noo sheeg walaalow. walaal waxaan joogaa muqdisho, gaar ahaan Wadajir. barnaamijka mar dhawaan kusoo biiray, horey maan uga qayb qaadan su-aalaha, laakiin caawa ayaa nasiib u yeeshay alxamdulilaahi. barnaamijka horta aad uma fahansani, inkastoo waxyaabo aan ka fahansanahay. kobciya saana ka warhayo waa maalgelin. maalgelinta qofka ka shaqeynana faa'iido ka helaa, qofka la maalgashadana faa'iido ka helaa. marka anigu saan ku helaa faa'iidadaan maalgashaday, goormaan se helaa? ma bilaan ku helaa? ma sanadaan ku helaa? midda kale waxaa waaye maxaa lagu soo geli karo dokumentiga lagu soo geli karo? ma idikaar dowlo kale, ma waasabora, ma dhalasha? maxaa la iska rabaa dokumentiya lagu soo geli karo qofka cadeymihiisa inuu Soomaali yahay inuu qof kala yahay? maxaa lagu kala cadeynaa? waa mahadsan tahay jawaad cabdi axmed. مؤمن وما سنت بارك الله فيك وحواي horta faa'iida dadka la sugan tahay faa'iidu ma aha faa'iido oo lagu leeyahay intaas lacag bixi intaas aad helaysaa ma ahan. waa lacagta waa la isku daraa, malaayiin dad isku darsanayso, waa laga shaqaysiinaa. faa'iidada soo baxda waxaa loo qaybsanaa sidii loo soo kala horreeyey oo lacagta u kala badan tahay ayaa loo qaybsanaa. waa isku reed nus doolarkaaga iyo nus doolarka qofkaasi waa isku reed, laakiin qofku uu kaa lacag badan yahay, qofka kaa lacag badan waa kaa lacag badana, qofaad ka lacag badanta adaa ka lacag badanaysid. laakiin faa'iidada waxa waaye waxa la shaqeynayo la soo sameeyay, kalluumaysiga la geliyey, supermarket la geliyey, xoolaa la geliyey, beeraa la geliyey, waddaa la geliyey. waxaasoo dhan wixii ka soo baxo mashruuc kasta oo kobciya fuliyo doolarkaaga waa ku jiraa faa'iidada dowgala iyo dowqa kamid ah. marka wax shaqeynaya la soo saarayo kadib la qaybsanayo waa faa'iidadaas waa. horta faa'iido waxay ku soo gaaraysaa saas. sanadka koowaad faa'iido sugumaysid, kan labaadna sugumaysid. waxaa kas kartaa marka barnaamij la sameeyo oo mashruucyo in laga shaqeyn rabo, waa in mashruuci la project loo sameeyaa, la habeeyaa, dad loo tababaraa, wixii la soo gadaa, la isku dubarida oo shaqo tagaa waa. marka waqti xataa haddii beer waa la falaa yiraahdo, beerta in la falay u baahan tahay, laga shaqeeyo, la diyaariyo, la abuuro, la ilaalisho, la soo guro, ay soo baxdo, markaa la ogaado intay faa'iido keento. wax kastoo la samaynayo hubciya ay samaynayso waa shaqo la qabanayo oo dhidid lagu helayo maaha, wax oo lacag lagu bedelanayo maaha. taas horta saas meel dhigo. tan labaad, lacagta sanadka koowaad waa bixine, labaad waa bixine, saddexaad suurtagal inaad faa'iido ku soo baxdo oon lacag lagu weydiin iyo in lacag lagu weydiino suurtagal waa. wixii ka dambeeya faa'iido noqon insha allah. tan mataqaana aad leedahay sugnaanshaha la iska rabaa. qofka waa inuu Soomaali yahay, waa inaad haysataa baasaboor hayso, ama warqadii mataqaana dhalasho hayso, ama warqad degmada kusuusan inaad Soomaali degmada ku cadaynayso soo shaabaysa keenso. waxaa lagaa baahan yahay inaad Soomaali tahay, lagaa baahan yahay oo caddahay Soomaalinimada. su-aalaha labadan ka jawaab muumino. okay, hal kaloo su-aal ay dhiman. halka su-aalo kale waxay tahay walaal, lacagta bil walba baa la dhiibaa mase hal mar oo lacag sanadka la dhiibaa oo halka bil ayaa kaaga filan, mase bil walba la dhiibaa $15 macnaha daily haddii $1 loogu dhifto? muumin waxaa loogu talagalay barnaamijkan wuxuu ku beesgaraysan yahay dadka masaakiinta oo tuugsada iyo kuwa gaari gacanka iyo gaari dameerka iyo kuwa dhulka yaago noloshooda islaanta shaaha karinayso ayaa loogu talagalay inay mustaqbalka noqoto qof xoole oo degan oon tuugsi u baahnayn oo shaqo hoose ka shaqaynayn oo nolosheedu ay mustaqirta loogu talagalay. marka lacagta la bixinayo qofku hadduu awoodo inuu bil $15 bixiyo waa okay waay. hadduu awoodo inuu sanadkoona hal mar bixiyo okay waay. hadduu 6 bilood bixin karo okay waay. asayna u fiican tahay hadduu hadduu hal mar wada bixiyo uga qiimo badan, uga lacag badan, uga faa'iido badan. mar hadduu $0.5 u bixiyo ama uu $15 u bixiyo ama 2 bil u bixiyo, qofba qofuu ka lacag badan yahay oo ka waqti ka soo horgalo waa ka faa'iido badan yahay hadhowt. marka qofka laakiin waxaa la rabaa in qofku uusan ku harin because lacag darteed. hadduu $0.5 maalin kasta ku darsanayo loo diido waa lagu geliya. laakiin ugu fiican $182 barna hal mar bixiya ugu fiican sanadkii mar. min waxaan u malaynaa
سؤال هذا ولا جواب أنا مرينا هذا ما سنتين هذا ما سنتين adigaa mudan مؤمن وكجذبني قفك كحجة ينتجينا قفك كحجة ينتجينا يا قفك كحجة وحاج عن تتاجي محمد آذن السينا okay soo dhowda Hello. Hello. ماشي جوكتي مقعد هاي وعي عبد الرحمن وعي xagaa joogtaa waxaan joogaa degmada galdow soo dhow hay su-aashaada adiga barnaamijkan may maqlaysaa si fiican barnaamijkan waxaan kusoo biiray marka weyd oo hadda ah marka gabar baa igu soo xirtay marka shaqa waxa weeye goortu shaqa cabdiraxmaan codkaa waa cabdiraxmaan صفة كسوعلي أحمد عبد الرحمن وكسوعلي codkaaga ma la maqlaayo internetka ka xumaamalnaa maxamed cabdiraxmaanow ka baxay ku soo noqo qofka xiga gudoomiye qofka xiga sii محمود آذن هذا محمود آذن محمود آذن ما الله يسهل مركز سهل نسي سهل قال سودو سهل قال ماشي كقاد استلابدا ماشي دحي أنا هذا بالله هذا سهل قال ماشي دحي على مدى كقاد تابو هذا قال محمود آذن أكون قونا محمود آذن ماشي على مدى كقاد هذا الكرس بالله محمود آذن حاول ملاينا qof kalaa soo galay samadoon يا qof kalaa soo galay samadoon magaca ku qoran magaca qof kalaa soo galo magaca ku qoran هاي سوقل مركب سوقل هاي هلو والله ليال إن مقشنا رجينا يا لنا هذا soo galay gudoomiye ومقعي هو سخر عبد العزيز قاق عليه مسي وطا والله ليال مسا gala soo dhow يلا كمغلنا هذا ولما سؤال عن قواعد دق اوكي laba su'aal aan qabaa degdeg ah barnaamijkan dadka qurba joogta ah anoo kala qurba joogan ahay waxaan joogaa South Sudan aan joogaa koonfurta Sudan ma sida oo la mid ah dadka Soomaali joogan uga la qayb galinaa midda labaad dadka qurba joogta ah Soomaalida ah ee Afrikada jooga badanaa waxaan wadanaa baasabooro ajaanib ah oo wadamada dariska ah ma markii la diiwaan gelinayo ma baasaboorada lagu diiwaan gelinayaa iyo diidan oo aan wadanaa ka wadano dalka dariska mise wax kale aan laga sahal barnaamijka waxaa ka mid ah isirka Soomaaliya ka mid ah isirka Soomaali waxaa ka mid ah barnaamij soo geli karo Kenya ku nool iyo ninka Ethiopia ku nool ninka Djibouti ku nool Soomaaliya ku nool ninka ku nool Washington ninka ku nool Canada isirka Soomaaliya ayaa ka qayb qaadan kara barnaamijkan waxaad nagu soo gelaysaa aqoonsiga aad haysato oo isirka ku haysato waayahay waan ka jahil baxay su'aasheeda aad ma santiina waqti ilaalinayo cooperative ايوه ما تصدق سهل قال ما تصدق هاي
السلام عليكم. soconno samadoon ودوي السلام عليكم. وعليكم السلام تاجوكتا raxmatullah arowgal meeshaa joogto أنا مقعي إسماعيل حسن محمد قول كبنادر دقمة كاران إن سودو دوي سؤال شرب إن أدي ودي وحواي qofka markuu lacagta maalgeliyo oo maxaan ku iraahdaa uu baxsado oo kale sanadka ugu horeeya ama kan labaad waxaa dhahdeen hadda wax faa'iido ah ma helayo goormay u bilaabanay faa'iidada midda labaadna waxaa waaye markii lacagta guri lagu dhiso oo kale kiradeeda la sugaa ama haddii supermarket la gelsho oo kale waxbaa un la gadaa oo lacagteeda la sugaa markii lacagtii waddo la gelsho waddada intee lacag faa'iido looga helaa seena micnaha lacagta waddo looga keenaa micnaha intaas waa intaa qof mahadsantiin tan koowaad son barakallahu of fiik waxaa waaye maadsantahay samadoon injineer xalsow okay ha abu samadoon waa maasan tahay waxaa waaye horta tan faa'iidada si loo helayo waxaa waaye dadka ula siman tahay faa'iidadu waxaa waaye lacagtaas faraha badan oo dadka ummadda isku darsatay ayaa laga shaqaysiinaa kalluumaysi geli waa mataqaanaa wadda geli beer geli xoolo geli wax kasta oo faa'iido looga rabo dadkuna shaqay ka helayaan dhalinyaradu inay shaqa tagaan la rabo waxa dhama ugu weyn taas waaye dadka shaqay kara inay shaqalaan aa ugu muhiimsan meesha marka waxa waaye faa'iidada imaanaysa hortaasa ugu soo horeyso marka ugu horeyso dhalinyarada inay shaqo helaan taas waa midda ugu horeysa taas waaye tan kale marka sanadka saddexaad la gaaro waxaa dhirta in faa'iido kusoo baxdo maxaa yeele barnaamij mashaariicda qaar hore u shaqo tegaya sanadka afraad waa hubanta insha allah saan rajaynayna waxaa tiri wadooyinka see lacag loo keenaa wadooyinka waa laba nooc wadooyin caama waaye oo wadooyinka magaalada dhex maraayo oo mataqaana dadka ummadda loo dhex dhisaayo waaye wadooyina highways waaye oo tool lagu xirayo lacag laga qaada baabuurka mara lacag u bixina marka highways kale ay hay-addu dhisto lacag ka qaadaysaa lacagtii badnaan laakiin lacag laga qaadaya oo kharash ay soo celinayaan insha allah kharash lagu dhisay iyo faa'iiday soo celinaysaa insha allah labada su-aalna ka jawaab malay waa sax marka haddii mar ay bilaabato in qofka lacag faa'iido u qaato markaas lacagta uu bixinaya ma joojinaa mise waxaa waaye iyadoo faa'iidadiisina uu qaadanaya sanadkii lacagtii kalena oo maalinlihii uu dhiibi jirina uu sii dhiibaa le micnaha intaas waay maalinlaha waxaa laga jaraa faa'iidada wixii ku soo baxa lagu siinaa so marka marba haddii lacag qaadasho qofka uu bilaabo ma u baahna inuu mar walba lacag dhiibo maano macnaha markaas haddaba faa'iido u bilaabato waxaa la rajaynaa inaan lacag dambe la weydiinin oo faa'iida u soo baxo sanadkii laga jaro ee la siiyo inta soo horta la siiyo waa mahadsantihiin insha allah allah idin fududay hadda goormay bilaabo doontaa alisleeyaha minaha mise weli waqtigeeda lama gaarin sugaynaa in dowladda ay noo saamaxdo ay noo ogolaato inaan furno bes taasaanu dhihi maskaliya insha allah waxna wada anfacaya waa ilaaha noo wada dedejiyey insha allah macallimiinta waxaana tihiin dadkii ugu dambeeyey ee la aamini lahaana tihiin dhalinyaraha soo baxday waa way lacagii way aruursadeen aqoon-yahanaa soo baxday way aruursadeen adinka hadda waxaad tihiin dad odayaal ah marka labaadna profesor ah waxaad tihiin dadka ugu dambeeyey ee la aamin lahaa marka ilaahay maaragtay hawshan weyn ha idinla garab galo ilaahay ceebtiina ha asturo shaqadan weyn aa wadaana insha allah allah idinku guuleeya tii soomaali oo dhan ee ku wada najaaxi leedna allah ka wada dhigay insha allah waxaan ku sheegaa sodono $1 laga qaado aniga naarko geli $1 adiga laga qaaday inaan naar ku galo oo abadiya aan naar ku jiro ma dhacaysto yani odayaasha waa dad soo shaqaystay waa dad soo haddana waa shaqaynaa marka ma ihin dad ah oo mataqaanaa inay wax dafara min anaga dafar hadda lacagtan loo aamino sanad kaamil waa xisaab soo oo meesha soo dhignay 13,000 iyo intaasaa taalo 11,000 waa la isticmaalay haddana waxa way xaflad lagu qabanaa lagu furaa iyo wixii kalantoodan mataqaanaa baahida ay hay-adda u baahan tahay lagu qabanaa ma jirto wax lacag la dhacayo tuuganimo iyo lacag cadaan qof gacanta saaran ma jirto sideeda waaba mamnuuc waa sharcigaaba diidaya aada ula socda micnaha waxaan ka wadaa waxaa aragnay qolyo badan oo forex ku qaraabanayo micnaha waxaan ka wadaa dadka ugu dambeeyey ee aqoon-yahanada ahaa ee macallimiinta ahaa ee aabayaasha ahaa marba hadday soo istaageen waa meesha ugu dambeeyey ee aaminaada la taagan yahan ka wadaa micnaha haddii adinka maasha allah howshiina ilaaha idinku guuleeyay haddii bani aadana ay wax kala dhacaan micnaha hadde ma jiri doonaanaan ka wadaa dad dambe oo la aamino micnaha waa mahadsan tahay samadoon waa mahadsan tahay dhannigaadana maarata malahaadana khayran u rajaynaynaa insha allah annagana waxaan rajaynaynaa dadka dhanniga wanaagsan ka soo baxo inaan noqono haddii aalinimo qofka ku xigaan gudbayna waa mahadsan tahay samadoon maxamuudkan muxuu ah maxamuud aa ku jiro ma hadlaayo asalaamu calaykum aadan siiyo وعليكم السلام محمود حاجات جوكتا يشارك aadan maxamed soo dhow
iyo su-aashaada waa dhawaay dhammaan baada kaashatada kobciya cooperative waan salaamaya nin kasta magaca iyo maqaamka meesha ku joogo wabacda salaam madaxda howlwadeennada kheyr allaasi meesha ku jiraan waxaa noo sheegtay macnaha in oo waxa dhiman keliya ay tahay in madaxda dowladda laga helo go aheadka in laga helo ama idinka laga helo marka processkaas meesha uu maraya inaa xoogaa noo aftiimisa waan jecelnahay tan kale waxaan howl kasta la bilaa caqabadeeda ay leedahay ugu horeysa adaha waaweyn waxaa laga yaabaa inay challenge noo sameeyaan marka taas ayagana maxay naga qorsheysan wabilahi tawfiiqaan ka bixi waaba sababtan dowladda adigo warno maxamuudow waaba jeerka sababta ka jawaaba waaba sababta go aheadka dowladda warno waa dowladda waa inay protection ku samaysaa wixii mujtamaceeda loo qabanaya dowladda idaa mas-uulka dad shacabka dowladda mas-uulka waa inay dowladda u qabataa protection dadka shaqaynaya oo xoolahooda isku darsanaya oo wadankooda dhisaya waa in dowladda ay wakiil ka noqotaa ay ilaalisaa masaalixda ummadda dowladda ay ilaalinayso saas waa waajib iga saaran waa saasaan rabnaa inaan u tagno oon la hadalno oo mataqaana ay aqbalaan go aheadna dhahaan taasan karna oo sharruucda soo dejiyaan iskaashooyinka noocaan ay ku shaqay lahaayeen waa mahadsantihi soo dhawo maxamuud aadan saas waaye waa bayskaasaa laga soo bilaabay culummadaa laga soo bilaabay kadib wasiiraa la arkay haddana horey shatiyaa hore loo qaatay oo maaragta shatiga waa jiraa haddana waxaa uun la rabaa sida uu injineerka sheegay protection iyo maaragta dadku dowladdu inay maaragta u qaadato waxaan wax horumarinay tahay oo iyadana hadhowta ay difaacda saasaa loo jeedaa soo dhowow qofka ku xiga waxaan siinaa xuska caddaan siinaa xuska cadde xuska cadde mooha oo gacanta taagay soo dhowow السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله waxaan u malay qofkaas siiseen waa anigaan u malan miya go ahead على كل حال go قال ahead waa nuur magacaaga meesha joogto waa nuur cabdullaahi xuseen maraykankan joogaa soo dhaw laba su-aalood oo xagga maamulka iyo xagga kobciye qoladan culimada ahaa ee aqoon-yahanka ahee gacanta inoogu haya aha oo bal aan weydiin lahaa iyo in yaroo kaloo yara bogaadina adu su-aasheeda ugu horreysa waxaa weeye waan idin salaamay horta dhammaantiin dadkeenna meesha ku jira iyo dadka hoggaanka inoo haya labadaba su-aasheeda ugu horreysa waxaa weeye hawshan habka aan u rabno ama aad u rabtaan waa hab la rabo dadku ay kaga baxaan fiqriga iyo gaajada iyo tahliga iyo cilladda weyn ay naga haysta dadkana shacabka haysata waana bilow oo waxba hadda aan bilaabayno weeye xoolaha waxaa jirta iga raalli noqdo waxaa laga yaabaa inaan wax yar ku dardaro oo iska yara dee qofku biniaadamka fishi macnaha laga yaabo soo dhaw xoolaha soo dhaw markii xoolaha geela markii la lisayo inta aan nirigta lagu soo daynin hasha ayaa waxaa la sameeyaa dhiil baa la cugaa dhiilkaa la xalaa waa la cugaa catir baa la mariyaa kabacdi baa la yidhaahaa wiilka kusoo daagee hasha isagoo diyaara labadii wiile lisayey iyo dhiilkiiba uu diyaar yahay ma garata waagar markaa su-aasheedu sidanay yay ku wajahan tahay lacag baynu ururinay daahfur baan samaynay lacag baynu ururinay akoonkeenni baan lacagteennii oo dhan kusoo shubnay waxaana la inooga fadhiyaa isla sanadkan lacagta la soo ururiya faa'iidadii laga helalayay bay dadkan u fadhiyaan oo sidaan hadda u soo gudbiseen xisaabtii tabarucaadkii habkaasoo kalea la idinka rabaa inaad xisaabtii usoo gudbisaan dadku faa'iidaday heleenna aad u soo gudbisaan laakiinse dhiilkii ma cugno mana xallo wuxuuna u cugnayn inooma diyaarsano istoodho habkii meesha lagu shaqayn lahaa inooma diyaarsano markabkii inooma diyaarsano nidaamkii habkii deegaankii meeshii la degayey ee alaabtan iyo miciishadan iyo hantidan iyo nidaamkan iyo dhaqaalahan la dhigi lahaa ee lagu ganacsan lahaa ee faa'iidadu ka soo bixi lahayd
ma arko kolley maydaan soo dhigin su-aasheedu markaa sidan markaa macquul ma tahay sanadkan intaan lacagta ururinno wixii sanadkan ka dhima mashaariicda meeshii lagu fulin lahaa intii la dhiso sanadka dambe in la daah furo oo la yidhaaho dukaankii ugu horreeyey maanta la furaya maanta ayuu wixii ka dambeeya ayaa wixii faa'iide ah iyo wixii nidaama laga xisaabtamaya su-aasheedu waa taas ugu horreysa ku soco markaa هاي injineer soo dhowow ما كجواب هاي نور سودو ما شاء الله حواي فكر في عن واي وحن كهربا هرت النور وحمل لها داتر الدكان فرنا الدكان عادي فرنا او شوب يعني ماشي حتى مراكز سوقات marka adoo Mareykan jooga rabto inaad dukaan furato koow waxa u baahan tahay in license soo goosato oo lagu aqoonsan inaad dukaanley noqonaysid laba waxa u baahan meel kareysato ama dhisato saddex waxa u baahan tahay inaad qalab ka dalabto afar waxa u baahan inaad shaqaale tababarto يعني waa inaad dukaankaas u samaysaa preparation fara badan waa markay lacagta gacanta kugu jirto haddaan lacagta gacanta kugu jirin haddaan lacagta gacanta kugu jiro ood rabto inaad lacagtii horta kow kadibna aad keento muxuu ahaa dukaankii iyo meesha ka dhigi lahayd iyo meesha population la iyo meesha dukaanku ku gedmi lahaay wixii sucaala aad yani you have to plan lot of things aad samaynaysaa kadib markay isugu kala daba dhacdo lacagtii iyo positionkii iyo dalabaadkaagii iyo supplierkaaga iyo supply chain waxna aad ogaato markaasaad dukaan furtaa soo ma ha annaga waxaan samaynaa dad waxaa waay annaga dadka lacagta ganacsi lagu samayn lahay kama qaadan ilaa hadda waxaan uga qaadayna waxa waaye mashruucan mashruuc mega project waaye mashruuc yar maaha waa garad soo ma marka waxaa loo baahan yahay in la sameeyo horta awalan marka hore kow sharcidan soo qaadanay oo waxaan nahay licensee oo aan ku shaqada kobciya ku socon waa soo qaadan labo waxaan u baahannahay habkan u shaqeynayna dowladdu inayna aqbashay inaan shaqeynano okay noo saarto oo ay shuruuc baarlamaanka soo saarto oo saamaxaya dariiqada in loo shaqeeyo ummaddan iskaashato iska canabsato waa soo ma lacagta markay soo shubanto akownada kobciya soo gasho annaga waxaan samaynaynaa budgetka ugu horeysay khubaradii aan u yeeraynaa training centerkaan furaynaa dadkii shaqada qaban lahayn tababaraynaa projectyaa la dejinaa hadda waxaa noo degsan supermarket waa noo degsan hal supermarket waa noo degsan yahay waa noo yaalla laakiin waa project kaliya oo realization u baahan yahay maraakiibtu waa sidoo kalentood beeruhu waa sidoo kalentood xooluhu waa sidoo kalentood highway ama wadada dhisa waa sidoo kalentood waxaasoo dhan wuxuu u baahan laakiin horta waa inaad daahfurtaa dowladda iyo shacabku rabo ay isku raacaan markaasaad bilaabi kartaa inaad project noo dejiso oo expert u yeerato oo hawshaada ay bilaabato oo contractyaal saxiixato markaasaad bilaabi kartaa laakiin ma awoodin adoon weli shilinba soo arurin inaad dukaamo keento oo mataqaana kobciya fishing samayso oo kobciya bank samayso suurtagal ma marka annaga waxaan qabanaa waxaa waa basics dhigaynaa horta hore markaan daafurdu waa laba qaybood waa lacagta hala bilaabo waa daafurid na waxaa waaye mashruuc la furaayo sidii masalan inaan supermarket diyaarinay oo maanta oodarka qaaday macnaha la daafurayo marka waa hal supermarket markaan samayno waxaa noo suurtagelaysa inaan samayno boqolaal kale markaasaa koobi besay noqonaysaa macnaha waxaad kan ku samaysaa jaa waa taqaanaa inta qaal loo baahan yahay inta computer loo baahan yahay inta sabay loo waa taqaanaa marka midka ugu horeeya maraakiibtaas haddaan hal markab soo iibiyo badda marka waan inaan u baahana waan ogaanaynaa soo garan marka nuurow ogsoonow inaysan arrinta isdabood ahayn waa arrin aad u dhib badan waaye waa u diyaarsan insha allah aan ugu daro nuur dhiishii inay cogan tahay ayaan maaragtay u sheegaa horta shatigii waa la sameeyey oo dhiishii coganteeda waa fasaxii dowladdu waa la haystaa xafiiskii waa furan yahay oo xafiis lagu shaqeeya haddaba oo kombiyuutarro yaallaan oo muxuu ahay kuraasi taallo oo meeshii lagu maaragtay shaqayn lahay bilowga ahayd waa taallaa marka culummada lala kulmay oo sharciga lagu dul akhriyey wax cibaala ka soo saara la yidhi iyadana waxay ka mid tahay dhiishii la cugaayo inta kalena waa tan uu kuu sheegay injineer cali sow oo maaragtay dhammaystiray marka waxaan isleeyahay nuur inaad maaragtay qodobkaasi aad nala fahamtaan rajaynaa jazaaka allah khayran aad baan yaad u mahadsantihiin waan fahmay anugu ujeeddadaydu waxaa weeye ninbaa waxaa la yidhi nin ay saaxiib yihiin baa u yimid markaasuu niyo hebelow markaad xoolaha la joogto aad baad u qaylqaylidaa waanad foodfoodidaaye maxaa kugu wacan buu yidhi mogta
markaasuu wuxuu yidhi niyow intaa waxaan ooga jeedaa buu yidhi inay xooluhu xasilaan anu meesha waan ku soo laalaabtay oo hawshan waa dhowr jeer baan ka hadlay intaa waxaan ooga jeedaa soomaali bal inay sacabada waxaa la yidhi biyaha waxaa la yidhi sacabadaada lagaga dhigaa bal inay horta sacabadeeda kaga dherigto umbaan horta anugu fikirkaygan yaree gaaban iyo hadalkaygan soo lalaaban umbaan anugu ooga jeedaa su-aasheeda labaad waxaa weeye sharciga kobciye aynu haysanno waa sharciga islaamka kitaabka qur-aanka habka la yidhi bini'aadamka xoolahooda iyo hantidooda ha loo ilaaliyo hantidooda iyo habkooda nidaamkaana la maro ee saxda ah weeye baarlamankan iyo dawladdan aan ka sheekay aan hadda aynu inagu leenahay sharcigan aan inagu wadanna iyo sharciga iyadu ay ku dhaqanto ay dadka ku maamusho kii islaamka ee kitaabka qur-aanka ee saxda ah ma aha marka su-aasheedan kale waxaa weeye dawladda markaad la kulmaysaan ee sharcigeennan iyo brograamkeennan iyo hawsheennan aad u soo bandhigaysaan ama aad rabtaan inay qayb ka noqdaan waa inay inoo fuliyaan sharcigan aan wadanno ayna ku dhex darin sharciga baarlamanka yaalla miiska yaalla aynu garanayno habkuu yahay iyo nidaamkuu yahay yayna inagaga darin laakiinse sideennan haynugu aqbalaan sideennan haynugu fuliyaan wixii aynu inagu u baahannahay dadkan ay u baahan yihiin miyay dhici doontaa sidaasu mise waxay dhici doontaa sidan ay iyagu wax u wadaan inay shuruucdooda sidan inoogu daraan ee habka hore ee u jirtay iskaashatooyinka hore ee baarlamanka iyo dawladda habkii hore ay u maamulaysa bay rabaan tan inay u maamulaan bay iyay u eg tahay mise hab ka duwan baad ka haysataan oo fikrada markaad rabtaan inaad dawladda usoo bandhigtaan arrinkan la kulantaan aad hawshan aad qayb ay inay ka noqdaan aan usoo bandhigayno waa su-aasheeda labaad nuur waa mahadsan tahay horta waxaad ogaataa sharciga laga hadlaayo waa laba qayb kala gooni waaye qayb waxa waaye bylaw la yidhaha waa sharciga hoosaadka ay hay-addan ku shaqaynaysa waaye sharcina waxa waaye darafka guud oo waxa waaye shuruucda qaran ka mida waaye kaas wuxuu ka hadlaa ogolaansho iskaashatooyinka noocaas ah inay waddan ka shaqay karaan ma kuu sheegaya habkaa u dhaqmaysid iyo waxaad samaynaysa isaga shaqo kuma laha ma soo faragashanayo keliya waxa waaye annaga waxaan qabaa international cooperative alliance oo caalamiya oo waddanka maraykanka hadda aad joogto 80,000 jirto oo iskaashato noocaasa jiraan waa america kaliya ma garatay marka sharciga oo lagu dhaqmayo oo hay-adda ku dhaqmayso sharci waa baylowga iyadoo leedahay oo culammada soomaalida loo bandhigay oy soo akrinayaan haddana akhriyo waay qaarna in soo akhriya soo celiyeen wax dhibaataa ma qabo islaamka waa waafaqsan yahay qaarna ay weli mataqaanaa ay qabaan marka wax oo islaamka ka baxsanna kobciya cooperative maba loo dhaweynayo asal ahaanba waana baylow waay sharciga hoose waay sharci hoosaadka waay laakiin dawladdu waxay leedahay inay samayso guideline ah noocaas ganacsiga noocaasa waddankan waa ka soco karaa iskaashatooyinka oo indi openka ah waa la ogol yahay iskaashiga ummadda in isgacan isqabso waa la ogol yahay taasaa laga rabaa dawladda keliya wax kale maaha laakiin ka annaga ku dhaqmayno waxa waye baylowga noo yaalla waayo culummada islaamka loo bandhigay hay-adda culummada soomaalida arkeen waxay yidhaheen wax oo qaldan ilaa hadda kuma hayna yidhaheen okay good jazakallah khayran nuur labadaas su-aalood maadaama ku dheeraaday su-aalaha kale dadkaan siinaya jaaniska jazakallah khayran waa mahadsan aadaa u mahadsan tahay baarak allah fiik qofka sii gudoomiye haye qofka xigan siinayaa waxaa gacanta taagan maxamed cabdullaahi cusmaan ayaa siinaya maxamed cabdullaahi cusmaan soo dhowo mahad cusmaan maxamed amin mahad soo dhowo maasha allah waa dhawaa professor alxamdulilah aadaa u fiicanahay dhib ma jiro xaalkuna waa degan yahay su-aalashaydu ma badno waa gaaban tahay waxaan joogaa magaalada muqdisho markaan u galo su-aasha xubnaha dowladda ka tirsan dhowr mar qaarkood aad sheegteen inaad la balansan tihiin wax feedbacka oo kasoo baxay kulankaasina aanan arkin macnaha ma lala kulmay oo feedbackooda waa la aruurinayaa mase way naga meermeereysanayaanu
wax jaanisaba nama siin kuwa hadda ballansan iyo kuwa hore loola ballamo su-aasheeda intaas ku maya qorantaa ma hadow ma dhihi karno waa naga meeraysana maxaa yeelay qofka haddii la ballamo ballanku u dhigo ballankaas ka baxo ayaa waa meeraysaa laakiin annagaa rabna inaan la kulanno wasiiraan la kulannay wasiirka in ra-isul wasaare noo gudbiyay eeday marka waa iska mashquulsan yihin shaqaa socota adagaa socda dowladdu waa shaqayohaysaa dad habeen maalinay shaqeeyaan marka ma dhihi waqtigaan dalbannay iyo waqtigii hadda aan sugayna waqti badan maaha waqti mataqaan la yidhaha waan ka dahna maaha hay maamsan tahay maamul gobolka balaadir waan rabnaa inaan la kulanno waa wacnay masajaan u dirna laakiin weli nooma soo jaarin ma insha allah khayr ilaahi ku dhameeyo aad u mahadsantihiin hadduu jiro qof noo gudbi kara waa u baahana hadduu jiro qof naga xiriiri karo oo si toos noo geyi kara waa u baahana wallahi hadda ma aqaan aniga ahaan waxa waaye isuma furin kobciyan ka hadlaa kobciya cooperative in dadkan halkan ku jiro dhegeysanaan ka hadlaynaa hadda khamiistii waxaan la hadalnay agaasimayaasha ka mid ah dalabkii uu naga qaaday anaa idiin soo jawaabayuna yidhi marka waan sugaynaa jawaabtaasi marka waxaan u gudbayaa cabdinuur naani ayaa siinaa cabdinuur naani cabdinuur soo dhowow nuur ma hadlin cabdinuur ma hadlin waxaan siinayaa maxamed amiin soo dhowow maxamed amiin adaan ku siiyey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دمان السلام يا أخواني هذا يا دمان غيركم بعينه وبيدنا كجولان. سؤال شيء ذو يكون هاي ما دام دولته أي شتى كنسيسي. أسبوعي هراء وحن بروفيسور كده سنة إن bangiga dhexe uu adkeeyey ama uu diiday inuu nasiyo accountkii ee dadku lacag kusoo dirsan lahaayeen dhanka kale shatiga waa haysanaa laakiin dowladda dhinaca bangiga dhexe ee soomaaliya lahayd maxaa sababi kara inay diidaan maxamed aan ku saxan bangiga dhexe maaha banuug kalanto bangiga dhexe shaqo kuma leh bangiga dhexe account lagama furo siisaba banuugta kaa laga furtaa banuugtaasaas kaas ku xiran bangiga dhexe qof shakhsiya haddii account yani uusan shaqaynaynin nidaamkan applicationka biometricka ama systemka rukumashada qofka inuu si joogto ah u rukunto inuu lacagta ku bixiyo sidee la isku waafajin karaa marka ama si directory waxay noqonaysaa in lacagta loo diro accountka oo kobciya cooperative lacagta ku shubmaysaa accountadu waxay ka fureen salaam waxay ka fureen dahabshiil IBS Premier Amal waxaas oo dhan ka furan yihiin iyo kuwa kale marka muku xiriirsan yahay oo muku xiran yahay applicationka iyo accountka isku xiran yihiin oo si rukuman lacagta dadka ugu diri karaan waa sidaas saan rabno saas waay insha allah waa mahadsantiin intaas waay soo dhow وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قفك حاجة نور السحر نور ناني مياه قفك حاجة عوي قفك حاجة قدامي قفك حاجة سيد هي مدينة هي حط توقف ماشي جوكتي سؤال شاذ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام دمان غيرت ماشي كجرت كل إنسان كل أنت غير كفعي كل واحد وذا السلامي. وكاغد. سؤال شاذ. السلام وحن جوغا يوروبا جوغا. سلام.
dur baan joogaa waa dhowah walaalkay aniga horta dhowr isbuucaan soo galay hadalkal ma helin laakiin xoogaa yarna waa idin dhegdhegaystay marka waxaan rabaa wax yar inaan wax kaa weydiiyo kubciye qofka markuu kusoo biiro uu kubciye ka mid noqdo wixii oo la bixihayo waa maqlay qofkii intuu ugu yar waa maalinta 50 sentiyaa tireen waa adiga sanadka 182 faran waa meesha ugu yar wixii ka badanna waa iska furan yihiin wax ka badan ma jiraan bas miya halaas le miya waxa dhan 182 bar ka badan ma la bixi karo sanadka okay waa gartay marka 15 aan maqlaayna maxay tahay maya laba shay ka markay tahay waxa la maalgelinayaa nus dollar kama badan karaan mataqaan maalintii laakiin waxaa dhici karta sadaqa jaariya inaad ku darsato oo ka badan 185 ka badan 182 bar ka badan waa u darsato sadaqa jaariya waxa aadaysaa waa gooni waa way isla shaqeynayaan laakiin gooni u bixi hadhow faa'iidadii qaadamay faa'iido waxay haysaa sadaqa jaariya taas waa garta marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka beeralayda ee aan beerahane qalab ay ku fashaan aanan haysanin tacabkana oo ka liito kuwaas maxaa loo qaban karaa waxaa loo qaban karaa contract in la saxiixo horta wuxuu xaq u leeyahay inuu kubciyo xubin ka noqdo waxaa kaloo la samayn karaa in beertiisa la qiimeeyo iyo wuxuu soo saari karo ilaa aniga waxaan rabaa dukaamadan faraha badan la furayo waxay u baahan yihiin supply basashii iyo qudaartii iyo fawaakiidii marka waxa uu qaban karaa asagaa la fiirinaya haddii oo contract lala galo waxaa la siinayaa qalabkii waxaa la siinayaa aqoontii waxaa la siinayaa mataqaan fertilizer u baahdo biyaha loo diyaarinaya ceelashaa loo qodaa haddii ay saas ku heshiiyaan iyaga kubciye iyo ay ku heshiiyaan qofka beerta iskale waana sidaas daa'iman saas because aniga beeraha inaan dhisaan rabnaa beero inay shaqeeyaan rabnaa muhiimadaba taas waa barkee wax soo saarkii beeraha ku jiraa tacabkii ma wada yaqaanaan warshadihiina beeray ku tiirsan yihiin iyo xoolaha warshadahana beeray ku tiirsan yihiin iyo xoolahaba marka midaas le rabay inaan wax idinka weydiiyo marka qofka wuxuu uu soo saaro hadhow ma laga gadaha mase asagaa meesha maya heshiis waaye wax alla wuxuu soo saaro kobciya iskale wixiise meelay ba saaran yihiinba masalan adiga beeraa qabtaa 100 hektar waxaa loo leeyahay xuska waxaa la siinayaa inay basal bis abuurto haddaad rabto baar dheero tahay meesha basal ugu fiican basal ama qare ama waxaa doon sheeg wax mutakhasis ku tahay oo si gaar u abuuraysaa jee lagu heshiinayo markay soo ga'aanna waxaad u geynaysaa kobciya cooperative lacagtaad lagaa gadayana waa taqaanaa inta aad ku gadayso waa la yaqaanaa macruuf waa lagu heshiiye okay halaasaan raba marka inaan fahmo waa mahadsantaa walaalkeen soo dhow madiina hadlays madiina soo dhow madiina meeshaa joogtay su-aashaada soo dhow dheh silaabka ka saar ee soo gal waa ku jirtaaba ee codkaa ku yaraa mana madiina codkaa kor u qaad soo gal meeshaa joogtay su-aashaada waqtigu waa socyaad professore madiina soo gal adigaan ku sugaynaa madiino soo gal gacantaaba u taaga madiina bartaanto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام طبيعي ورحمة الله سودو طبعا سودو وين هذا الشيء مدينة وتحدث سؤال كويدينيسي مية اوكي هي المشكلة حسك الله هذا الحسكة سودا السلام عليكم حسكة وهذا شيء السلام ورحمة الله سودو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا ما سنتين خيارة ريكو بعية أقويانا بروفيسورة دمانتين waxaan joogaa xamar hal su'aal aan wataa su'aashu waxay tahay haddii maanta sida hadda aan dhageystay iyo mar dhow aan kusoo biiray iyo xogta si fiican baan u fahmay ifan qofkii hadduu qof waxbarta yahay ama dus waxbaran haddii hadda mashruucaadka la furaayo sida supermarketyada iyo barnaamijyada beerahaas waxaasoo dhan qofku xorm u yahay oo ma ka shaqayn karaa mashruuca
mise shuruudaha ka mid ah xuska waxa waaye Inay soo barnaamijka maasha allah barnaamijkan oo dhan wuxuu u samaysan yahay in shaqo la helo barnaamijkan dhan waxaaba loogu talagalay dadka aan shaqada haysta inay shaqo ka helaan aqoon-yahan ha noqdo yuusan naqan aqoon-yahan qof walba meeluu ku habboon yahay qofka maasha allah jaamiciga meeluu ku habboon yahay qofka dugsi sare meeluu ku habboon dugsi dhexe meeluu ku habboon yahay dugsi hoose meeluu qofkan waxba baran meeluu ku habboon yahay marka qof kastoo Soomaaliga inuu shaqo tagaa waa qof kasta Soomaaliga maasha inuu ku allah filnaadaa waad mahadsantihiin mashruucan shaqada maaha haydiin mashruucan mashruuc dad gooni lagu naaxinayo maaha waa mashruuc Soomaali oo dhan lagu naaxinayo waa maasha allah waad mahadsantihiin shaqada haydiin allah in garab galo insha allah annagana in garab taagannahay allah fuuday biidnillahi albaari insha allah iyo barnaamijka nooga xiran xagga dowladdana allah fuuday insha allah بارك الله فيك شكرا لك masan amiin amiin ay قف قدام بيسي برسول قف قدام بيلاس waa dhamaad waa meeqa mar Abu Abdullah meeqa marayna 16 waa ka ما شاء الله hal qof u dar imale waa dhowr daqiiqo dhiman cabdi jaamacan siina cabdi jaamac cali hadduu iga maqlaayo cabdi soo dhawow meeshaa joogtay su-aashaada cabdi jaamac cali هلو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaan وعليكم idin السلام salaamay dhammaan ikhtiyaarta waxaan ku soo boqolkiiba nafta quraanka karimka professore ani waxaan qabay hal su'aal oo gaaban su-aashaas waxa weeyo xaga joogta cabdi cabdi abka magaalka diyaariyey wata mataqaanaa applicationka la diyaariyey ee la doonayay in kobciyo lasoo dhigo si ay dadku isugu diiwaangeliyaan luqadda biyuur af soomaali ma tahay si maadaama dadku yani fahanka iyo siday u fahmayaan laga yaabo inay kala duwan tahay af soomaali ma lagu diyaariyey oo macnaha af soomaali ma yahay mise luqad kalaa lagu diyaariyey inkastuusan weli soo bixin laakiin maadaama processku uu ku jiro waa su-aasheeda taa wey jaamac waa bahansan tahay waxa waaye abka waxaan rabnaa inuu noqdo asagoo af Soomaaliya asagoo af Carabiya asagoo af Ingiliisha sababtu waxay tahay ilmo badan oo Soomaali Carabi ku hadlaan oo wadanka weligood ma imaan carabtay joogeen qaar badan Ingiliishay ku hadlaan oo Yurub ay ku noolaayeen ama mataqaana ama Australia ku noolaayeen qaar kalena waa weligood wax kale Soomaali waxay ma yaqaanaan ummadda gudaha ku jira badankooda dad waxay dhaho Soomaali marka abku waa inuu buuxiyaa laakiin waxaad ogaataa wax steps waaye step 1 step 2 step 3 waa hadda waxa kan soo baxay waa English ku qoran yahay kan ku xiga Soomaali waa kan ku xiga Carabi insha Allah sahri ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خيرا إن بدن بان إذن ما نعدل يا إذن كمال البجوكتان إلهي بإلالي إن شاء الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيك وهذا ما دام أبو عبد الله وأنا سوح waa mahadsan tahay هذا ما وقتك noo soo xesha cabdallah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله walaalayaal reer kobciye dhammaantiinba meelaad joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad ilaahay khayr badan haysiiyo alla waxaan ka baryayaa mashruucan aynu wadno in alla inagu guuleeyo ilaahay cumrigii caafimaadka inoo barakeeyo oo ina tusiyo ina gaadhsiiyo kobciyo Soomaali ka dhigay barwan qaalaha insha Allah caalamka walaalayaalow akhyaar ilaahay barakeeyo hawsha ay wadaan waa asbaabtii weeye iyo intana garataaganba kobciyo inuu kobciyo noqdo taa Allah iskale subxaanahu wa tacaala markaas si ilaahay uu inagu fududeeyo waxyaalaha inoo hadhay ilaahay inagu fududeeyo Allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waman yattaqillah yajcal lahu min amrihi yusraa Allah wuxuu ballan qaaday walaalayaal cidda alla ka baqda in alla hawlahooda u fududeynayo marka aan naftida ka bilaabaya idinkana khayr iyo wanaag la jecel walaalayaal alla ka cabsi aan badino sidoo kale Allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ومن يتوكل على الله فهو حسبه عدة على ثلاثة الله كفلا مركا ولا ليال هاي خير السيو ولا ليه هاي بركة وحسو قرقرة ولا ليال وأنس كدافنو أن أدل قادنو أن أدعينو وحويا أن تشوش نغفر مشروعا إن شاء الله وأن يقو أن يهي ووضنا الله كعبتنا وبلنا إن شاء الله الله وتلا صارنا إن شاء الله أخيارتنا وأدعينا إن شاء الله مركا وحن ليه هاي إلهي هاي نقوليو جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته
dadkan ka gaarsii weynay waa raalli aadaan waxa waaye waa dee waqtigaana ciririyey marka inta waa kulligood mudanayaal waaye intaan ka gaarsii weynay oo gacan taagay marka usbuuca dambe ilaahay insha allah hadduu yidhaahdo aan ka jawaabi doonaa su-aalahaad biidni illah alkariim barnaamijka saas uu nagu soo xiran yahay doctor nuuxir gudoomiye nuuxir